بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ maanta waa 6 bishii 7 2022 qodobada wararka ugu weyn ku muuqda doonta waxa kamid ah maanta oo Talaado ah madaxweynaha dowladda Russia Vladimir Putin oo warbixin ka dhageystay wasiirkiisa gaashaandhigga Sergey madaxweyne Putin ayaa aad u soo dhaweeyay warbixinta iyo macluumaadka buuxa ee uu keenay wasiirku taasoo ku saabsan guusha ay gaareen ciidamada dowladda Russia oo guulo la taaban karo ku soo hoyay dagaalkii socday muddada ka badan 137 maalmood dagaal ba'an oo lagu hoobtay oo la isku adeegsaday madaafiicda noocyadooda kala duwan ayaa ka socday bilihii ugu dambeeyay dalka Ukraine gaar ahaan gobolada bari gaar ahaan gobolka Luhansk people gobolkaas oo gacanta gabi ahaantiisba u galay dowladda Russia iyo taageerayaasheedaba madaxweynaha dowladda Russia Vladimir Putin ayaa soo dhaweeyay warbixinta kuna qancay wuxuuna ballan qaaday ciidamadii planting flags in the rubble. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Chechen fighters claimed the Ukrainian city of Lysychansk for Russia. wuxuuna madaxweynuhu ballan qaaday ciidamadii geesiyaasha ahaa ee Russia ee halka ka dagaalamay in la guddoonsiin doono bilo sharaf abaalmarinna la siin doono sidoo kale wuxuu mahad u celiyay ciidamada gobolka Luhansk iyo Donbass wuxuuna ayagana u ballan qaaday in la siin doono bilo la mid la siiyay ciidamada Russia planting flags in the rubble. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Chechen fighters claimed the Ukrainian city of Lysychansk for Russia. Planting flags in the rubble. Chechen fighters claimed the Ukrainian city of Lysychansk for Russia. gaashaandhigga ayaa maalinka shalay ka sii daayay bartiisa ku leeyahay Twitterka iyo Facebooka diyaaradda magaceedu waxa la yiraahdaa Zokhay 25 waa nooc casri ah ee joog hoose iyo mid dhexe iyo mid sare way ku duushaa waa diyaaradaha soo afjaray dagaalka ka socday bariga Ukraine oo reer galbeedku aad u la yaabeen diyaaradahan oo joog hoose xataa ku duulin kara oo radaarka maartus qaban karin daawadayaal guusha dagaalkan waxay u tahay dowladda Russia guul aad u weyn maantay war baa soo baxay oo ka soo baxay midowga Yurub waxa la sheegay lacagtii midowga Yurub oo la oran jiray euro inay hoos u dhacday waxaana taariikh ahaan heerka gaadhaale 2002 ugu dambeysay guushaas waxay taabanaysaa dowladda Russia iyo shacabkooda iyo madaxweyne Putin oo guul fiican u soo hayay shacabkiisa Ruushkan waxa la dhaqaalihiisa kor ay u kacay dhaqaalaha Ruushka xilligan ama sanadkan meeshuu gaaray weligeed ma gaarin baa leeyahay waxyaalaha keenay in dhaqaalaha Russia kaca waxa kamid ah lacagtii dalkaas uu lahaa oo adkaatay oo wax lagu kala gadanayo Ruushka waa dal qani ku ah wax soo saar aad u fara badan waxaana kamid ah wax soo saarka shidaalka gaaska beeraha cuntooyinka noocyada kala duwan sida biraha oo kale maxaasta waxyaalo fara badan buu dhoofiyaa hubka ayuu dhoofiyaa gaadiidka waxyaalo aad u fara badan dowladda Russia soo saaran waa dal ku horumaray tiknoolajiyada dowladaha reer galbeedka waxa u moodaa in hadda rabaaxa kul ay ku dhacday dagaalkii ku socday dalka Ukraine madaxweynaha Ukraine wuxuu u ballan madaxweynaha Russia Putin wuxuu u ballan qaaday shacabka ku nool gobolka Luhansk people la yiraahdo magacooda Republic Luhansk wuxuu u ballan qaaday shacabkaas in ay ku noolaan doonaan nolol wanaagsan kuna soo noqdaan dhulkoodii shacabka intii ka qaxday dagaalada socdeen wuxuuna u ballan qaaday inay ay go'aanka iska leeyihiin inay gooni u go'aan iyo inay maaragtay Ruushka ku soo biiraan inkastoo siyaasadda Ruushka si loogu bartay ay u badan tahay inay ku soo biiraan dalka dowladweynaha Russia daawadayaal dhulka la isku haysto waa dhulkan gobolada kale oo hadda ay ciidamada Ruushka rabaan inay u dhaqaaqaan waxa aad u jooga ciidamada Ukraine waa gobolkan Luhansk dariska la oo hadda la filayo in ciidanka Ruushka u dhaqaaqaan madaxweyne Putin wuxuu ku amray ciidankiisa inay nastaan laakiin dagaalka sii wadaan dagaalkan wuxuu sheegay madaxweyne Putin inuu soo joogsan daawadayaal reer galbeedku waxay ku soo gurayaan hub aad u fara badan waxayna ballan qaadeen lacag billions inay siin doonaan dalkaas ra'iisul wasaaraha dalka maanta wuxuu codsaday 750 bilyan oo dollar oo wadanka lagu dhiso madaxweynaha dalkaasna wuxuu sheegay in gobolada ay uga soo baxeen gobolada bari Donbass iyo Luhansk xeelad tactica ama
dib u gurasho wuxuuna sheegay gobolada ku yirihiin ciidamada Raashiyaanka sidoo koonfurta kale ciidan yar baa jooga waa weerarin doonaa taas waxay og tahay in madaxweynaha dagaalka loogu guuleystay madaxweynaha Ukraine Zelensky in siyaasadda yaqaanana uu ahayn oo iska maartay komediyana uu yahay daawadayaal guushan ay gaareen dowladda Raashiya waa guul aad u weyn oo maartay maanta farxad u ah madaxweynaha dowladda Raashiya shacabkiisa u dabaaldegayeen iyo ciidamadooda